Soomaalidu dhibaato ku sugtaa dib hadduu dhaco Soomaha xal in la raadiyo oo isla marba dhicin wiilka Mustafa xasuustaa dhibaatada ku dhacday Soomaha in la xaliyo si isla marba qof Soomaali scholarship buu helay scholarship-ka Denmark uu helay sababtan wuxuu ku hayay baasaboorka Soomaaliga ma aqoonsanin baa lagu yiri Denmark meeshii bay taagantahay baasaboorka ma aqoonsana Mustafna arintiisaas ku dhamaatay أنا عمر عرتن ويل كهيرة وسارد أحبرشة جوه اللي يرد عيارها جوه بابي ريدي يسوي كذا بالدم تلفون الجسنا عمر عرتن لو اسمع قارض ميشة تجلها في حال بكيني لهاد وويل كلوه له إنه برايك كجلا أما كندا يمسك قبطه وعم بالله فرسمين لها دبعت وين واحد سنة ويل كهير واي ماشي وفريا وحبلا يقون مايو وحلوين مدحوينها قرابيين خير كأمريكا لقى بيلا يا ماشي وكا هكذا كله مات أنت ويل كلاد أنا هي ريدس وبابينا يلا سويا ويل كان صدق أنا يرد عيارها جود إميجريشن كصوماليا وين صومال لا يرد صوماليا ده حيسته باسبور يال أن كان جاري الله سمعنا أو العقل جاي قاضي أو بدل وش بيه بإلهي بين كل الدنيا شفركتها باسبور بالله سمعنا يا عروتي بحلليه إيربوت كدلك وين بيكرنو فيا ليبيا لوش بيه هالكاس يكون مانيا سيبا مركا قفك ريوليانك أما أمريكانك كو أقباليا باسبورك نوع عاسا هايد إيميجريشنك نوع عاسا سيلو أمريكا مشكلة طلبات يوروبي تغيان يوروبا عسوميس waxaa laga hadlayaa waa shacab dadkan sharciga u diinay Soomaalida ahayd gadaal u celiya oo ku celiya baasaboor aan aqoonsanayn oo noo saxiix Soomaha inay dhahan waryaha LMA war sidan si maahe ugu yaraan baasaboorka looga bedesha dadkan dhibaato kuma qabnee baasaboor aan aqoonsanayn sabab dadkii ugu celina dhih maayaan iyagii baa lacag lagu siinayaa inay warqad qoraan dadkan in la soo celiyo oo ay aqbalaan marka airport-ka laga soo dejiyo lacag bay ku qaataan Suudi baa lacag kaga qaateen Jarmalka lacag kaga qaateen dhalinyaro badan oo Soomaaliya way iibsaday immigration-ka iibsaday kii yimaada Mustafa Cali Dhaxow maanta waa milyaneer kii ka horeeyay waa milyaneer kii ka soo horeeyay waa milyaneer kan hadda iido ee la keenay milyaneer buu noqonayaa sababtuna maxay tahay warqad yar baa lagu dirayaa dhalasho bal qof kaarka ID kaarka qaranka haysta niira maxaa dhalasho looga dirayaa waxa lagu yeedimay baarista lagu diray dambaas maxamed in faral laga dhigayo oday yar baa inta khad ku gelinaya markaas uu ku dhahayaa orska bax lacag ku qaadanaya 10 euro waxaas taban baasaboorka waa 107 euro safaaraduhu 250 bay qaadaan baasaboorka Soomaaliga waa baasaboorka duufa u qaalisan haddana ku 10 ugu liitu ku jira mushkiladahaas oo waxaas waa baasaboorka Kenya oo 63 maanta ay ku weynahay 6 yani 3 sano xirrimadii 7 shan ku baqaadatay diblomaasigeeda inagana 8 ku maraya wixii arta ka dambeeyay qof kasto iska qaadanaya marka laba baasaboor baa jira baasaboorkaas waa kii shacabka oo dadka dhuma ka dhaxeeya baasaboorka service passport baa lahaa dadka dawladda u shaqeeya qaata mar aan dawladda u shaqeynayay baa qaata labada baasaboor kaasna waa Soomaaliga caadiga ah kaasna waa kii dawladda lagu shaqeynayay markaas xilliga dawladda u shaqeynayay labada baasaboor Saud maahay kaas maanta wuxuu marayaa shaqaalaha dawladda 8 baa lagu qiyaasaa maanta wuxuu marayaa 50 oo qof haysta baasaboorkaas معقول لما عقل قل لما dhibaatada waxa laga fahmay baasaboorka gududan inuu baasaboorka kala sharaf badan yahay kana ka fudud oo ciidan ku mashquulay dadka Soomaaliyeed ma aaminsana dhibaatada waxa ka jirta immigration-ka Soomaaliya inta immigration-ka noocaas uu yahay ahaysanana dhibaatadu way ugu socoraysaa